aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariye cilmi awaare oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya magaalada Khartoumna maanta sida loogu yeeday warbixintan soo socota ayaan idinkaga diyaariyay ee daawasho wacan daawadayaal ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa maanta si wadajir ah ugu ciiday magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan Soomaalida oo inta badan ku dukata salaada ciida garoonka kubadda cagta ee jaamacadda caalamiga ah ee Afrika ku dhex yaala ayaa halkaas farxadda kula wadaagay kumanaanka jaaliyadaha kale ee ka soo jeeda wadamada Afrika iyo Aasiya intaba qaar kamid ah ardayda oo TV-ga qaranka kula hadlayay iyagoo ku sugan magaalada Khartoum gaar ahaan jaamacadda Afrika ayaa u sheegay in aad ugu faraxsan yihiin ciida taas oo ay ku sababayeen in Soomaaliya sanadkan ay ku ciidayso dawlad rasmi ah oo adduunka la dhaqmi karta sidoo kale farxadda ciida awgeed ayaa waxay ardadii aan kula kulanay magaalada Khartoum inoo sheegeen inay hambali u dirayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mudan bay yiraahdeen hambali guulaha uu gaaray gudoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Sharma Arke ayaa madaxda dawladda hambali u diray waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan wax yar ka iraahdo channelskan aan doonayaa inaan kaga faa'iideysto xaqiiqatan daayirta Soomaaliyeed ee halkan ku sugan dalkan Suudaan ardayda waxay gaarayaan ilaa iyo 5,000 oo arday Soomaaliyeed markii la yiraahdo Khartoum iyo gobolada oo idil xaqiiqatan muhiimaddu waxa weeyaan maanta oo kale waa maalinta kaliya ee 90% la arko ay isku yimaadaan barnaamijka noocan oo kala ah ee jaamacadaha la isugu yimaado salaada markii la tukado kadib ay noqdaan shabaabka dad barnaamijyada iyo axwaashooda maxaan ku raahdaa ka warqaba midda labaad aan doonayo inaan iraahdo waxa weeyaan Soomaaliya maanta waxa u dhalatay xukuumad caadil ah waxaan u hambalyeeynaa mudane madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaare Saacid iyo ra'iisul baarlamaanka mudane Jawaari xaqatan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxa u qaadeen xil weyn baa u qaadeen xilka qaadeen waxaan u maleynayaa insha Allah ta'ala inaad ka soo bixi doontaan si cadaalad ah aad Soomaaliya ku maamuli doontaan محمد علي oo isaguna ah gudoomiyaha ururka ardayda ajaanibta ah ee gobolka ku yaala waqooyiga dalka Suudaan ayaa isagana hambaliyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wallahi maanta ma soo koobi karo dareenkayga ciideed waa mid aad u kacsan walow ciidii hore aan soo qaatay aan joogay dalkii hooyo ciidan isku mid aysan ahayn waayo aad arkayso in farqi weyn u dhaxeeyo ciidaha dalalka ajaanibta kala ah sida Soomaalida iyo Suudaan oo kale halka Soomaaliya ay soo wada aadayaan caasimadda Soomaaliya Suudaan waxay aadayaan gobolada waxa jirta farqi weyn u dhaxeeyo ciidaha walow aan maanta ku sii ciidayo in ay tahay farxad aad u weyn in aan maanta ku ciido dawladeedii oo ka baxday gumeel gaarnimo waxaan hambaliyo aad iyo aad balaan u dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan kale u dirayaa saraakiisha waxaan u dirayaa nabad sugidda waxaan u dirayaa dhammaan madaxda dawladda Soomaaliyeed ee cusub waxaan u dirayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay hambaliyo waxaan leeyahay ummadda xilka aad u qaado waa xil aad iyo aad u faaweyn insha Allah ta'ala aan noqdo kii aad ku guuleysataa aan ku fidnoowin midka Ilaahay aan kugu fidno Allah ka dhigo waxaan kale hambaliyo u dirayaa mudane ra'iisul wasaare mudane Saacid iyo gudoomiyaha baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed Mr. Jawaahiri oo aad wax weyn ka bedelay inta ka warhayna intuu hayay xilka cusub iyo waxaan u hambaliyanayaa dhammaan shucuubta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadda waxaan kale si qaas ah uga hambaliyanayaa dhanka madaxda wasiirada cusub ee soo socdo sidoo kale waxaan leeyahay insha Allah ta'ala in Ilaahay ka dhigo iyagana kuwa ku soo aadiyo wax tar leh iyo wax fiican insha Allah magay waa Maxamuud Abdullaahi Maxamuud marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed ee munaasabada Eid al-Adha al-Mubarak waxaan si guud markale aan u salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa ciideeda Soomaaliya oo ka hormarsan Mareykanka ka degan Switzerland ka awood badan Ruushka kana dhaqaale badan Jabaanka insha Allah dalka Suudaan oo arday fara badan oo 5,000 kor u dhaafaysa ay ku nool yihiin ayaa waxa ay ciidaha mar walba ay isugu yimaadaan magaalada Khartoum guriyaha ay kaga degan yihiin iyadoo ay jirto meelo gaar oo isugu yimaada jaamacadda Afrika oo yaagaarkeeda oo Soomaalidu inta badan ay ku badan tahay Sido Maxamuud Sido TV-ga qaranka Soomaaliya intaana ka bixinna waxaan idinku wareejinayaa wariyaha iyaga TV-ga qaranka ee dalkaasi Yemen magaalada Sanaa ku sugan Maxamed Ali Duxa oo faahfaahinta warkan isagana halkaas nooga soo diray